This is the first time Somalia has appeared as a party before an international court or tribunal. taariikhda horay uma dhicin dal saxiixay heshiis muran lagu gelinayo geygiisa. Soomaaliya waxay heshiiskan gashay iyadoo hurdaysan. Fakradda labaad ee heshiiska isafgaradka wuxuu si cad Kenya u siinayaa inay xaq u leedahay inay sheegato dhulbiyoodka Soomaaliya. sidaas waxa qoray wargeysi caalamka ka soo baxa iyagoo ka faaloonayay dooda badda Soomaaliya gaar ahaan wargeyska Taiwan Times. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب لكن خلوا للوطن. warbixintan waxaan ku eegaynaa go'aanka maxkamadda Hague muxuu ka bedeli karaa sahminta shidaalka xadka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxay ku doodaysaa in xadkeedu uu barbaro la yahay loolka dhulbaraha, taasoo u suurta gelinaysa Kenya inay sheegato dhulbadeed Soomaaliyeed oo baaxad leh. ayna horay u siisay ruqsaddii ama shatiyadii baaritaanka macdanta iyo shidaalka shirkado shidaal sida Eni oo ah shirkad shidaal oo Talyaaniga laga leeyahay iyo Statoil oo ah shirkad laga leeyahay dalka Norway. Soomaaliya waxay ku doodaysaa in xadkeedu u fidsan yahay dhanka koonfur bari kuna dhereersan xadkeeda dhulka ay la wadaagto Kenya. Soomaaliya iyo Kenya muranka badeena ee ay Kenya keentay waxa uu ku soo beegmay xilli soo saarid shidaal uu ka bilowday Afrika, badweynta Hindiya, gaar ahaan Tanzania iyo Mozambique. dhulbadeedka ciidda iyo dhagaxa Soomaaliya waxay la mid yihiin kuwa Mozambique iyo Tanzania, halka oo lagu guuleystay in laga soo saaro tiro aad u badan oo gaaska dabiiciga ah. horumarka dhanka shidaalka ay sameeyeen Tanzania iyo Mozambique. Kenya oo taas ka faa'iideysanaysa waxay xadkeeda u fidisay dhanka bariga iyadoo gudaha u gashay biyaha Soomaaliya isla markaana guddoonsiisay shatiyo shirkadaha shidaalka soo saara. sidoo kale sanadii 2013 dawladda Soomaaliya oo iyana aragtay horumarka Tanzania iyo Mozambique waxa ay dib ugu yeertay shirkadihii shidaalka ee shatiyada ama ruqsadaha ay horay u siisay dawladdii hore ee Soomaaliya. nasiib darro dawladda Soomaaliya kuma guuleysan in shirkadahaasi ay dib u soo noqdaan. ha yeeshee dawladdu waxay mas'uuliyadda shidaal baarista u wakiilatay oo dalaal ka noqday shirkadda Somo Oil and Gas. shirkaddan waxay ku dhawaaqday sahan iyo daraasad inay ku samaynayso badweynta Hindiya. markii hore aagga sahan iyo cilmi baarista shidaalka waxa loo qorsheeyay inuu ahaado Ras Kamboni ilaa Ras Casayr, laakiinse markii dambe sahanka shidaalka waxa uu ku soo ururay Ras Kamboni ilaa iyo Hobyo kadib markii Puntland ay diiday in deegaankeeda badeed laga hirgeliyo cilmi baaris shidaal. bishii 8 2014 ayay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda adduunka dacwad ka dhan ah Kenya oo la xiriirta xadka badeeda. This is the first time Somalia has appeared as a party before an international court or tribunal. Even at this early stage, we have been greatly comforted by the efficiency and impartiality with which you have managed our case. maxkamaddu waxay diiradda saartay laba arrin: qoraal isfaham oo dhex maray laba wadan iyo nuxurka qoraalka isfahamka. dawladda Soomaaliya waxay ka hortimid sharciyadda ama ansixinta qoraalka isafgarasho. nasiib darro maxkamaddu waxay go'aansatay in heshiiska afgarasho uu yahay mid sharci ah. sidoo kale maxkamaddu waxay ku diiday Kenya nuxurka isafgarasho una iftiimisay inaysan muuqan wax labada wadan ay ku heshiiyeen. waxaase cajiib ah in heshiiska isafgarashada lagu sheegay inaysan qorinba labada wadan waa Kenya iyo Soomaaliya. heshiiska waxa qoray oo ka soo shaqeeyay dawladda Norway oo qayb ka ahayd waxa loogu yeero gargaarka horumarinta xagga sharciga ee dawladaha soo koraya. markii hore Norway waxay danaynaysay in Soomaaliya shidaal laga soo saaro iyadoo rabtay inay ka faa'iideysato oo shirkadaheeda shidaalku helaan qandaraasyada sahminta iyo soo saarista shidaalka Soomaaliya. laakiin Norway markay ka quusatay oo ku daba dheeraaday in shidaal laga soo saaro Soomaaliya waxay ciyaartay game kale oo waxa ay dabada ka soo riixday Kenya si ay u sheegtaan badda Soomaaliyeed.
waana sababta ay u soo diyaarisay qoraalka lagu sheegay isafgarashada. arrintaasna waxaa maanta maxkamadda Hague ka hor sheegay qareenka Soomaaliya u doodayay. wuxuu qareenku si cad u sheegay inay ahayd dowladda Norway ciddii soo jeedisay, soo diyaarisay, soona qortay dukumentiga loo yaqaano is-afgaradka ama MAU. kadibna Norway ay Soomaaliya iyo Kenya u keentay si ay u saxiixaan. qareenka Soomaaliya u doodayay ayaa sidoo kale maxkamadda ka hor cadeeyay in Kenya baahida markaas ay Soomaaliya u qabtay ay ka dhex aragtay fursad weyn oo ah inay saxiixa Soomaaliya hesho, kadibna ay u fasirato sida ay iyadu jeceshahay oo ah inuu ahaa heshiis xallin khilaafaad badeed. muranka xadbadeedku ma aha wax ku cusub dunida, waxaana lagu xalliyaa laba dariiq: heshiis guud oo dhex mara wadamada muransan, kaas oo sal u noqda xuduud badeedka iyo ka faa'iidaysiga khayraadka laga heli karo inta ku hareeraysan xadka. Kenya waxay door biday inay jidkan marto, ha yeeshee Soomaaliya way ku gacan sayrtay. maxkamadda caalamiga ah inay go'aamiso calaamadaysana xadbadeedka qaybiya labada wadan iyadoo tibaaxaysa shuruucda qaramada midoobay ee badaha. Soomaaliya sidan ayay door biday. sida muuqata waxay u badan tahay in maxkamadda caalamiga go'aan ka gaari doonto xadbadeedka labada dal. go'aanka maxkamadda caalamiga ah wuxuu noqon doonaa kama dambayn waajib. go'aanka maxkamadda kadib waxaa suurtagal ah in arrinta muranbadeedka ay isku beddesho diriir siyaasadeed, lagana dhaxlo isku dhac iyo colaad joogto ah. sidoo kale waxaa mugdi geli kara mustaqbalka hawsha sahanka iyo baaritaanka shidaalka laga damacsan yahay in laga hirgeliyo xadbadeedka labada dal. waxaa isweydiin mudan qorshaha dowladda Soomaaliya maadaama ay ku soo wajahan yihiin mowjado siyaasadeed oo culculus. maxkamaddu waxay go'aan kama dambaysa ka gaari doontaa cidda hantinaysa aagga lagu qiyaasay 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, halkaas oo lagu tuhunsan yahay kayd shidaal oo tiro badan. arrimahan oo idil waxay jiha hor leh ay u rogayeen xiriirka labada dal. waxaa la gaaray xilligii la eegi lahaa caqabadaha, natiijada ama cawaaqibta laga filan karo go'aanka maxkamadda. aagga baddeena ee Kenya ay nagu qabsatay waxaa lagu qiyaasay 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, taas oo u qaybsami karta qiyaastii ilaa iyo 15 xirmo blocks. cabir ahaan xirmooyinka Soomaaliya waa 5,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. waa mid ka ballaaran xirmooyinka caalamiga. ceelka badda laga qodo cabir ahaan inta badan waa 80 akri ugu yaraan, ugu badnaana waa 640 akri. fogaanta u dhaxayn karta ceelasha badda laga qodo qiyaastii waa 1.5 kilomitir. halkii xirmo waxaa laga qodi karaa ilaa iyo 1,400 oo ceel ugu yaraan. ceelka shidaalka waxaa laga macaashi karaa ama uu wax soo saarkiisu socon karaa ilaa iyo 30 ilaa iyo 50 sannadood. xirmooyinka shidaal ee badda cabir ahaan waa ay kala duwan yihiin. tusaale ahaan waddanka Mareykanka cabir ahaan waa 23 kilomitir oo laba jibaaran oo u dhiganta 5,680 akris xirmadii. dunida qaarkeed waa ilaa iyo 150 kilomitir oo laba jibaaran. xeebaha iyo 750 kilomitir oo laba jibaaran biyaha fog ama moolka. caqabadaha sharciga iyo howlaha soo saarista shidaalka. go'aanka maxkamadda kadib muranbadeedku ma aha mid dhammaan doona. waxaa dhici karta in go'aanku sababo in Kenya biyo badeedkeedu yaraado, sidaa darteed maraakiibteedu ay uga baahan karaan ruqsad Soomaaliya iyo Tanzania. intaa waxaa dheer cabsi hor leh in muranbadeed cusub uu ka dhex qarxo Kenya iyo Tanzania, Mozambique iyo Tanzania. dhanka Soomaaliya waqtigan xaadirka ma jiro muranbadeed u dhaxeeya Soomaaliya iyo Yemen ama Soomaaliya iyo Djibouti. haddiise sahan iyo yididiilo shidaal uu bilowdo, waxaa dhici karta in muranbadeed horle uu dilaaco. caqabado badan ayaa mar walba la socda shidaalka la soo saaro, gaar ahaan xadka u dhaxeeya laba wadan, halkaasoo inta badan ay ka dhacaan dagaallo dhibaato badan reebay. tusaale ahaan sida goobta shidaalka laga soo saaro ee lagu magacaabo Rumeila Field oo ku taala koonfur bari ee dalka Ciraaq,
oo 32 kiiloomitir u jirta xadka waddanka Kuwait. sidaan la socono shidaalku waa dareere iyo neef ama gaas mana aha shay fadhiya wuxuuna dhaqdhaqaaqiisu ku xiran yahay cadaadiska iyo heerkulka aagga uu ku kaydsan yahay. dalka Kuwait mar hore waxa ay qoteen dhulkooda dhanka xadka Ciraaq ha yeeshee shidaalka ay soo saareen waxa uu ka soo dareeray inta badan ama ka imanaya dhinaca Ciraaq. halkaas waxa ka dhashay colaad iyo iska horimaad xooggan oo la og yahay arrintaasi raadkii ay reebtay. Kenya xaq uma laha inay qodo shidaalna ka soo saarto biyaha Soomaaliya, laakiin haddii ay Kenya qotaan biyahooda kana soo saaraan shidaal kaasoo ka soo qulqulay dhanka waddankeena Soomaaliya, shidaalkaasi wuxuu noqonayaa mid iyagu ay leeyihiin. inta badan kaydka shidaalku waxa uu ku fidsan yahay xuduudaha waddan walbana dhankiisa ayuu ka soo saartaa, taasoo marar badan dhalisa muran iyo isku dhac dagaal. waxaana inta badan faa'iida waddanka isagu shidaalka la soo horbaxa. waxaa xusid mudan in maxkamadda caalamiga aysan go'aan ka gaari karin arrimaha shidaalka iyo khayraadka ku fidsan xadka labada dal iyo sidii loo soo saari lahaa. Kenya baddeeda waxaa ka socda sahan iyo daraasad xooggan oo ay wadaan shirkado shidaal. xadka labada dal khayraadka ku jira waxa uu la mid yahay weel biyo ah oo labada dalba dhinacyada ay ka joogaan. Kenya hadday isticmaalaan tuubo waxa hubaal ah weelka biyaha oo idil in ay ka baxayaan xadka dhanka Soomaaliya. khayraadkii ku jirayna wuxuu noqonayaa mid gura haddaan xilli hore laga faa'iidaysan. arrintaasna waa mid ku xiran xoogaysiga dawladnimadeenna iyo deganaanshaha dalkeenna. dhulbadeedka Kenya nagu haysato wuxuu u dhigmaa in ka yar 1% guud ahaan badda Soomaaliya. arrintani waxay dabooshay hawlihii sahanka iyo baarista shidaalka Soomaaliya. sharciga shidaalka Soomaaliya waxaa maalgeliyey deeq-bixiyaasha waxaana qoray qareenno ka soo jeeda Yurub. sida la hubo sharcigan waxaa ka buuxa dildilaac badan iyo khataro badan oo ka dhibaato badan kara warqaddii isfahamka ee u dhaxeeyay Kenya iyo Soomaaliya ee ay diyaarisay dawladda Norway. sharciga shidaalku waxa uu khuseeyaa waddanka oo idil, halka warqaddii isfahamka ee dhibaatada reebtay ay ku eg tahay xadka Kenya iyo Soomaaliya oo keliya. daraasaadka xilligan socda wuxuu salka ku hayaa oo keliya xulashada bartii la qodi lahaa ama wixii laga baari lahaa. kadib waxaa la samaynayaa qodista ceel ama sahmin lagu darsayo walxaha meesha ku jira iyo sifooyinkooda. waa in la arkaa lana caddeeyaa waxa meesha ku jira inay yihiin dareere, liquid, oil ama gas. waxaa intaa dheer waa in kaydka meesha ku jira uu ganacsi geli karo. waa in la og yahay bartii laga dhoofin lahaa iyo suuqii la geyn lahaa. intaa kadib ayaa la oran karaa waddanku wuxuu leeyahay kayd shidaal oo la hubo. sidaas darteed maanta lama hubo in waddankeenu leeyahay kayd shidaal oo ganacsi geli kara. waddankeena Soomaaliya ma laha hay-ado iyo xarumo lagu barto culuumka shidaalka. maadaama ay jirto yiddiilo fiican waxaa habboon in la diyaariyo dhalintii hawshan ballaaran qaban lahayd mustaqbalka dhow. haddii lagu guuldaraysto arrintan waxaa marar badan dhici doonta wixii ka dhacay Dharoor Valley, dooxada Dharoor ee Puntland. xogta aan warbixintan ku soo qaatay waxa aan ka soo xigtay meelo kala duwan. waxaase ugu badan xogta ugu badan oo aan ka soo xigtay oo aan uga mahadcelinayaa aqoon-yahan Soomaaliyeed oo aan si gaar ah ula xiriiray iina soo jawaabay xogtan iyo kuwa kalena ila wadaagay. waa Dr. Axmed Cali oo degan Mareykanka. waa PhD. waa khabiir ku takhasusay culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa. intaan dib u kulmayno waa Cabdirasaaq Jubboon leh sidaas iyo nabadgelyo.